waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da dhegaystayaal maanseyahanadii soomaalidu waanadii ay u jeedin jireen dumarkii u dhaxay waxaa iila qoto dheer gabay uu lahaa saahid qamaano qiimihiisa suugaaneed ka sokow kuwo badan oo ay isku ujeeddo yihiin kaga duwan goorta la tiriyey goobta lagu tiriyey iyo muddada gabadha iyo isagu oori iyo say ay isu ahaayeen taasina dhowaan bay kuwa caddaani aan idhaahdo wuxuu ka meermeeraba waa dambe ayuu saahid ku tashaday inuu guursado wuxuu kolba sangaha degme ku hojiyaba marba oday magac dheer wuxuu tamadiyaba dhalaartii dambe ayay tada kaga ibabeeshay inuu doono bilicdeeda awgeed gabadha asli midabkirey uu u bixin doono gabaatigiibuu hormariyey kadibna yaradkiibuu soo tubay markaas buu in loo meheriyo gar u yeeshay maalin heble ayaa lagu ballamay haddii aan la waayin wadaadkii hebel ahaa oo dhowr maalmood ka hor meel heble inuu ku furay laysku waraystay lama waayine wadaadkii la hel labadii kuray ee loo diray iyo isagii oo wada socda ayaa fii dambe reerkii gabadha dhalay u soo hoyday maantii xigtay baa goobtii meherka loo darbay la soo buuxiyey neefafkii la qashay markii la cunayna waxaa la gudagalay dantii aawadeed meesha la isugu yimid dhinac waxaa fadhiya wadaadkii gabadha aabbaheed iyo dhowr adeeradeeda dhinac kale waxaa ka muuqda saahid iyo saddex ay hilba ahaayeenoo madasha u soo raacday dhinaca saddexaadna waxaa ka muuqda gabadha la meherin doono oo dumar kale dhexdooda fadhida la yaabna ma laha oo waa dhow ka hor gabadha la meherinayaa iyada ayaa nafteeda mas-uul ka ahayd cidina wakiil kama noqon jirine iyada ayaa wadaadka iyo ninka guursanayaba intay soo hor fadhiisato sheegan jirtay meherka lagu guursanayaa waxa uu yahay iyo inta uu la eg yahay haddii ay wax tiro badan sheegato ninka guursanayaa wuu diidi jiray iyaduna wixii ay sheegatay ayay ku adkaysan jirtay wadaadka iyo xigtada kale ee goobta ku sugan ayaa dhexdhexaadin jiray meeshaba in lagu kala tago iyada oo qarka loo saaran yahay ayay gabadha xoolihii hore ee ay ku dheganayd wax ka yar ku raaliyi jirtay kolkaas buu ninkuna oggolaan jiray dabadeedna hawlihii meherka intii ka dhimanayd ayuu wadaadku ebyi jiray ha yeeshee asli midabkarey maalintii uu saahid guursanayey cayn meher iyo tiradiisa toona laguma wada hadlin sidii aan gabaatigii iyo yaradkiiba loogu wada hadlin wax waliba sidii uu gabyaagu u jeclaa ayay u dhaceen waase siday ahaan jirtaye wadaadkii ayaa damcay inanta hor fadhida ee haddeer uu meherinteeda ka faraxashay inuu waaniyo una sheego saygeeda cusub waxa kala gudboon iyo siyaaraha inay kula dhaqanto laga rabo arrintaas kolku u hog badayna saahid baa ka dhex galayoo inta gacanta uga baaqay wixii uu maaganaaba ka joojiyey wuxuu ku yidhi sheekhow goobta hawshii wadaadnimo ee aad u timid ma dhammaysatay mase waxaa jira shareeco ahaan wax kuu qabyo ah oo meherka iyo guntamiddiisa kaaga harsan wadaadkii oo su-aasha ka yaaban ayaa yidhi maya eebba mahadi ha ka gaadhee hawshii meherku waa inoo idishahay waxaanse u hog baday wuxuun waana ah inaan gabadha ku idhaahdo kolkaas buu saahid yidhi haddaba haddii ay sidaa tahay wadaadow adigu taadii gudataye aniga ii daa wixii waana ah oo gabadha lagu odhan lahaa isla goobtaas ayuu saahid ka tiriyey gabayadiisa inta la hayo kuwa ugu culus inuu ka mid yahay gabayga loo haysto waa gabayga gabadhii haddeer meherku ugu dhacay uu ugu faahfaahiyey waxyaabihii uu jeclaa inay ku tilmaanaato iyo dabeecadaha qaarka uusan ugu dulqaadan doonin si toosa intuu gabadhii ugu halqabsado ayuu ararta ugu sheegayaa dhul tolol iyo degmooyin wixii uu u ilaala tegey intii uu xiladoonka ahaa wuxuu ogeysiinayaa hablo ciiddaasa oo uu la kulmay inuu iyada ka doortay quruxda qiimiga loogu sheegay iyo qoyska ay ka dhalatayna uu ugu xishay sidaa awgeedna uu gar ugu leeyahay erayada uu ku odhan doono inay dhab u weelayso qayb arartaas ka mida ayuu ku yidhi afka ugunti iyo cadari iyo nimanka iimeeya isaxaaqa irdaha maalin guur ururta reer kooshin abasguul bartile reer garaad ama raweyntooda ooliga magaalooyinkiiyo ararta buuhoodle ilig iyo awaare iyo jeed iranka ceeldhiinle intaasoon ilaalada marshoon dumarka eegayey asli midabkileeyay haddaan adiga kaa doortay oo aan anfiyey naago kale odayna kuu raacay arday iyo sidii macallin baan kuu afbarayaaye naahoy aan alif kuu dhigee qaado odhahdayda
arartaa kadib ayuu gabayga weyn u gelayaa. qodob buu gabadha ugu kala dhigdhigayaa wixii uu ku waanin lahaa iyo wixii uu ka waanin lahaa, isaga oo ugu horraysiinaya oogadeeda inay dar yeesho, aqalkeedana aan unsiga laga waayin. ma udgoona naagaynan gumeed uudna shidan mayne, mar haddii ay ubad yeelatana lagaba aayuusiye arwaaxaaga oogada biyaha, abad ha moogaanin afka iyo ilkaha rumaga mari oo indhaha kuulo, uskag naagle waa nacabnahe yuusan kugu oolin. marka xigana wuxuu ku waaninayaa cidda uu isagu ka dhashay inay iska ilaaliso, si goldaloolo lagu xanto aanay uga helin, kol walbana iyada oo qurux la tiicaysa mooye aan si kale lagu arag. haddii arad la guursado tolkay wa u abtiriyaaye, adyad iyo waxay kuula iman aga barnaagoode, afarta hilqadood iyo qardhaas aqalka kuu taalla, aradbaxa asliga kuusha iyo qaado agabtaada, adigaan ilwaad quruxsanayn yaysan kuu imanin. mar kale wuxuu kula dardaarmayaa isaga oo maqan martida reerka soo tamadisa oo inta soo haybsata magaciisa ku timaada inay ka haqabtirto wixii dheef ah oo ay hayso, ceeb aanu isagu garabsanna aanay u soo jeedin. wuxuu kaloo kula dardaarmayaa dumarka iyo waayeelka ay isaga xigtada dhow yihiin inay u roonaato, ducadoodana ay gurubsato. haddana wuxuu ku waaninayaa waa u dumaashiyaale ilma adeeradiis inay ka xishooto oo marnaba iyada oo qaylinaysa aanay sina codkeeda u maqal. anoo maqan islaan idin martiyey niman i aanaystay, ad ha odhan allah igu ogow aabbahood ma hayo, arli durugsan yay iigu iman inaad asteexowday anigaan ogayn dhuuniyay igaga eed sheegan. reerahayagoo idil gabdhaha iyo islaantoo dhan u roonow anfaacigana si ayan ku inkaarin, naagaa ugaas lehe dadkiiyo ururi waayeelka. ayaa noolba tii qaylisaa waa ibliis falana ilma adeeraday iyo raggaan oday wadaagaynay irdhahood qab, abidkaa xishood, aayar socodkaaga is ogow, afkaagana yasiro, idabtu waa doorab. wuxuu haddana kula dardaarmayaa aqalkeeda inay dar yeesho oo gudaha iyo dibaddaba ay ka hufto, ilaa xilka ay u astaysaana uu ahaado mid aan isaga uun la ekayne mudanihii kolba soo martiyaa uu la fadhiisan karo. aqalkiiyo ardaaga iyo udbaha ararta qoyskaaga, aqlab iyo awaara isku baxay sida tangeel oodi, yuu kaa ahaanina kurtiya ha isku awdinaado, isku irikib awdow anshixi, ilaa xilkaan jiifo hana igu itaaline, ka yeel meel ergada deeqda. intaas kolkuu ogeysiiyo ayuu ugu dambaysiinayaa qodob digniin iyo dardaar welinba xambaarsan oo ah say iyo ooridii inaanay in badan isu noqon doonin haddii talooyinkiisa ay dhagaha ka furaysato, dulucduna waa inuu furi doono. wuxuu yidhi intaasoon afeefaan hadlay oo waana kuu iriye, hadduu eebbahay kugu anfici waa kitaab idile, haddii aadan aqbalin xaajadaa lagu ogeysiiyey nin kaloo ilaah kuu idmaba kala awaarayn. wakhtiga barnaamijka oo kooban dartiis ararta iyo gabayga weyn toona idiinma dhammaystirin. yeelkeede taariikhda bulshada soomaalida, gaar ahaan midda qoyska ruuxii ay dani ka haysaa, waa gabay uu malahayga ka ogaan karo saahid iyo raggii la xilliga ahaa haweenkooda midii ay oorida wanaagsan u yiqiineen. dhegaystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo jooga, waa ina toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.